السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان ميل البادونكات كجوكتان وإذن سلامي ومركل ولا شين فاض معلك سودوا هذا ما أنت مقال وسود سأود جدا ما أنت مقال كين محوك سابسين هاي بليس هذا channel كان كعصب تهاي سبسكرايب إنه صار دهور إنه الجوكت لك دي كومنتي إنه صادس بيقولنا إنه ده دمان تنوح إذن لا هاي رمضان مبارك meel kasta dunida aad ka joogtaan waa idin salaamay isku soo noqod wacan oo wanaagsan maanta halkeeba jadwalkeena uu saabsan yahay halkeeba loo socdaa wuxuu ku jihaysan yahay inta waa idin socodsiinaya hadii ilaahay saa wada jeedin maanta waa socdaa intee u socdaa maanta waxaa rabaa Malaysia intaas aan joogay barnaamij aan wali inta aan ka soo deeno oo YouTube-kay oo ku jirin araba maanta inaan halkaan idin ka tuso waxay tahay taasna Malaysia dadka badan way ku nool yihiin maxaa la dhahaayay sicirka oo nolosha iyo sicirada oo waxyaabaha la kala gadanayo maxaa la dhahaayay xagga qatul daruuriga ha noqoto xagga caafimaad ha noqoto xagga oo ganacsi ha noqoto dhan walba adiga ha noqoto maanta waxay ku saabsan tahay maciishada way kala duwan tahay cunto miyaa dhar miyaa maxaa la dhahaayay ilaa mukuusan daawooyinka miyaa dhakhtarka miyaa maxaa la dhahaayay waxbarashada miyaa ma ahan maanta mawduuceena aan meeshaan u imaano waxay tahay in aan wax ka ogaano maciishada oo maanta magaalada adduunweynaha meel walba ka kacsan anaga dhankeena halkuu buu ka taagan yahay waxa waaye kaasna goldanka saawada ogtihiin dahabkii aad iyo aad ayuu sare u sii socdaa muddo ku dhawaad hadda waxay u dhowdaha u maleena hadayse u dhaweyn bilooyin 8 bilood 9 bilood ama sanad la iska dhacday inuu dhulkaba imaado uu diiday awal markii oo cabaar uu kaco bilooyin kama soo wareega jirin dhulku imaa jiray hadda wallahi anaga dhan waa fahmi la'anahay maciishada aad iyo aad ayuu adkaatay oo dahabka dhinaciisa ah kii dollar ahaa ku soo haray Abu Bidaar Malaysia dhulku socda dhulka anaga dhulku nagu tirtiro hadda dadka hadii oo banaanka wax loogu soo diray ay tahay horta aad iyo aad ayuu qiimihiisa dhulka nala galay awal $100 waxaan ku qaaday jirnay ilaahay ma ku samadarnaaday 400 iyo 440 ugu dambeysay inta aan ogaay markii dambe aniga dhawaanahan adiga sanadooyinkan wax ma xagga manaka miga soo marin ilaahay ma ku samadarnaada calashaan gudaha leen waxayga si caadi ugu qaadanayay xaggana mid kale ku kala dibiray calashaan dollar ahaan wali wax ma uu qaadanaynin laakiin dhawaanahan bilooyinkan markaan sarif aan maagnabo bisinka waxa waa iisoo dhawaanin waa meeshii iga taalnada waa sheekada beesada meesheeda ha iga taal walaalayaal wax wadanka jooga leh lacag ha isiile ay taagantaa sheekada marka anaga barnaamijkan waa fahmi weyne dollarku wuxuu dhulka u sii tirtiranayo oo dahabkana cirka isku sii shareero ilaa hadda booskiis hore uu ku soo naqalaya marka waxay hadda taagan tahay Malaysia dahabka meeqa ayuu ku maraa garaamkii ma Muqdisho ka sareena mise waa ka hooseena yaa ku sheegay Muqdisho ma ka sareeyaan Muqdisho ka hooseeyaan yaa ku sheegay ana maanta idin wado wali barnaamijyadan dhan lama soo aniga horta maanta horta caruusadna waan wadaa adeegyo kalena meeshaan waa ka soo qaadanaya sida wada arkaysiin waa idin soo saari doona hadii Ilaahay yiraahdo laakiin hadda waxaan soo gaarnay meesha dahabka asxaab badan meeshaan igu sugayso anigana maalintii ugu horreysay ma ahan horta dahab Malaysia aan ka gato waa markii labaad si ila tahay waa markii labaad si ila tahay sababtoo ay tahay hadii maanta Muqdisho aan ka damco Malaysia qaadi karo calashaan waa isku sicir amba waa wax yar kala koreeyaan hadaan dhaho maanta Malaysia ka gadanaya anoo u jeeda aan noocaan rabo baxsanaya horta meeshaan dahabka ugu badan waxa waaye maxaa la dhahaayay Singapore ma ahan Singapore wuu ku yar yahay dahabka ugu badan waxa waaye Indian gold waa dahabkii ugu sareeyay Indian gold ay niyad ahaantood oo haysta aniga magoobay ma sheegay Singapore ku haysta nin walba choice ma laho
aniga dahabka asliga oo rasmiga ah waxaan u aqaanaa Singapore inuu yahay علشان سنغافورة waxaan ku doortay sicirka aad ku gado isla sicirkiisa aad ku helaysaa sida anta aan gaday aan ogahay waa kana hadda meeshaan aan soo galay asxaabta meeshaan ay igu sugayeen saa u wada jeedin marka dahabka Malaysia iyo kan Muqdisho maxay ku kala sareeyaan sicir ahaan hadii la dhaho waxay ku kala sareeyaan adiga wax saas ah ma ahan aadna uma u korsano maxaa la dhahay adiga hadda Muqdisho meesha uu ka maraayo 130 140 hadda 150 oo sii socda asagoo la dhahay ogaa labadan bari hadduu wax ku darsoomin wali maana fiirinin hadda tan Malaysia waxa waaye bixista oo celiska camal aad iska gadaysid waa $100 iyo wax yar jajab ah raacsan marka xisabka gadanaysidna waa 100 iyo konton $160 waay ha Allah musta'an maxaa la dhahay marka aad aniga horta ko bee'ada mishiya katiinadaan ku dhigay sicirkeeda hadda la isku dhufanaa marka waxa waaye inaa isla ogaano fiican waxa waaye Indian gold waa tan aad iyo aad ay sicirkeeda oo maxaa la dhahay Singapore hadii la dhaho way ka jaban yihiin Singapore dahabka ugu qaalisan meeshaan Malaysia maxaa la dhahay Indian gold xogaa wuu ka jaban yahay wax saasna ma ka jabna adiga wax macquul ahayn amal waa adiga $30 25 ilaa iyo $40 meelaas ayaa wax adiga ku dhex jiro maxaa la sicir ahaan hadii la dhaho marka danaagta waxaan isku taleeranaysaa anaga adeegeeni iyo dahabkeeni wixii aan wadanay xalaabteena dhan waa isla soo rarnay masaajid meeshaan aan soo marnay salaada naga tageysay marka asxaabey dahabka Malaysia adaad rabtid inaad wax ka ogaatid channelka ina hore u wadid isku day channelka waxa waaye ayaanta 3,000 u dhow yahay inaad sii wadin isku daya maxkamad muu saaran yahay channelkan la sii kala kiciyo hadii Ilaahay yiraahdo anagana suuqeyn hadda saana ku soo dhamaanay meesha waxaan soo marnay alaabaha daahminka iyo waxyaabaha lagu gadgadaayay waa soo wada jaray 40 bacba aniga i xirxirantaa hada idin dhaw ka waran 40 bacba aniga i xirxirantahay maxaa la dhahay alaabteen dahabkeena saasan ku wadanaa marka insha Allah intaan ku wada kulmi doona assalaamu calaykum